السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا سو دوادا halkan waa janaalkini mahad bare ku soo dhawaada waa raalihada maanta waxaan idin hayaa walaalayaal cashir aad u xiiso badan oo saan rajeynaya waxa ay u batay xogaa su'aalaha macallin cashiradii waad badisay way adkaadeen dadka qaar ma wadi karaan marka insha Allah taala say rag hore u sheegeen cashirada waan isku dhex darayaa kuwa yar yar iyo kuwa xogaa yaroon si qof walba uu asaga heerkiisu oo meesha aga heli kale insha Allah taala baan ka dhigayaa bal raali ahada intaas waan ka raali gelinayaa marka xigta haddii aad noo cusub tahay fadlan subscribe noo sar share subscribe sar gambalka taabo all side share noo qayb insha Allah taala noo share gare like ta noo taabo haddii aad nala sii joogteen sidoo kale waxaad noo dhiirigelin kartaa like ta oo noo taabto noo share gareyso insha Allah taala ku soo dhawaada cashirkeena conversation A and B ayaa daadihinaya who is this man who is this man He is Master Abdi. Where is he going? He is going to work. Is he a worker? Yes, he is a worker. Where does he work? He works in the hospital. What does he do? He is a doctor. For whom does he work? He works for MSF. Does he take salary? Yes, he takes enough salary. How much does he take? He takes $200. What about you? I'm jobless. Where do you like to work? I like to work in a ministry. Your ambition is not bad. Yes, my ambition is nice. Nice to meet you too. Okay. waxaan leenahay A stands for either Ali or Eden. B stands for Bashir or something like that. Who is this man? Waa kuma ninkan. Kuma is uu yahay. This man ninkan kewe. Who is this man? He asaga is waxa weeya Master Abdi. Waa Abdi baa leedahay. Master mana MR tan waxaa laga soo gaabiyay master oo caadi ahayd oo matalan maliga ama qofka markaas waxa leh ama mas'uuliyadda haya ayuu ahaa laakiin waad soo gaabsanaysaa MR master ayaa leedahay master. Who is this man? ninkan yaa waaya he asaga is waxa weeye Master Abdi ayaa leedahay. Where xagee is he asaga going uu socdaa? Where xagee is he asaga going uu socdaa? Going hadda way going markaa leedahay waa hadda present continuous tense. Where xagee is he going uu socdaa? He asaga is waxa weeye going mid u socda to work shaqo. He asaga is going wuxuu socdaa to work shaqo ayuu socdaa. To maxay ku tusaysaa directionka ama jihada aad u socoto ee horeyda ah ayay tuda ku tustaa. Is he asagu miyaa ista haddaan hore soo marino fadlan waa su'aal. Is miyaa he asaga a worker
shaqaale miya? Is he a worker? shaqaale miya? Worker. Yes, ha, he asaga is waxa weeya a worker shaqaale weeyaan. Worker shaqaale. Where xagee does he asaga oo kuu sheego daasta markaa fasirayso waa duudii oo kale isku qaba ayr macnaha isku baabiya halka waqtaas shaqadii qaadanaysa u fiirso. Where does he where xagee does he asaga work uu ka shaqeeya? Where does he work? xagee uu ka shaqeeya? He asaga works wuxuu ka shaqeeyaa in gudaha the hospital isbitaalka. He works wuxuu ka shaqeeyaa in gudaha the hospital the hospital isbitaalka. What maxaa does he asaga do uu qabtaa? What maxaa does he asaga do uu qabtaa? What maxaa do iyo does labada midana hadda main verb waa action tanna waa helping verb waa question waa dheer su'aaleed oo fiirsa marka. What does muxuu he asaga do qabtaa? What does he do? What does he do? He asaga is waxa weeya a doctor dhakhtar weeyaan. fadlan haddii lagu yidhaha what does he do? What do you do? haddii lagu dhaho waxaa la yidhi jawaabta waxaa fiican inaad abaarta wixii aad tahay markaas ee haddaad tiraa what do you do haddii lagu yidhaha maxaad qabataa? I do teaching, I do treating, I do something haddaad tiraa lama rabo ee waxaa ka fiican what do you do mar haddii lagu yidhaahdo in aad abaarto wixii markaas aad tahay. Matalan what do you do aa lagu dhahay I'm teacher. What do you do? I'm a doctor. What do you do? I'm a student. What do you do? Manaa waxaa tahay what do you do marka lagu yidhahdo waxaa tahay markaas abaaraysa marka waxaa leeyahay sida kugu wanaagsan waa saas. What does he do? muxuu qabtaa marka lagu yidhahdo he is a doctor asagoo dhaqtar leed he is a doctor. For whom kuma does he asaga work uu u shaqeeyaa? For whom kuma does he asaga work uu u shaqeeyaa? For whom manaa kuma does he asaga work uu u shaqeeyaa? He asaga works wuxuu shaqeeyaa for MSF. MSF dabcan waa magac waa hay'adda muxuu ka shaqeeya hay'adda ka shaqeysa muxuu sheeg maxaa la caafimaadka waa fal dareemaya MSF isbitaalada ku shaqeeya taasoo ka shaqeeya. He works wuxuu u shaqeeyaa for MSF ayuu u shaqeeyaa. Does he asaga miyuu take qaataa salary mushaar? Does miyuu he asaga take qaataa salary mushaar muu qaataa? Does he take salary? Does he take mana qaadasho weeyaan take salary mushaar. Does he take salary? Yes, ha, he asaga takes wuu qaataa enough salary. Salary mushaar enough ku filan enough fiirada halkan G iyo H markuu ereyga israaca G H israacaan inta badan mar la qarina waa jirtaa haddii laakiin aad ku dhawaaqdo F baad ugu dhawaaqayso maxaa leedahay enough enough ku filan okay. He takes wuxuu qaataa enough salary mushaar ku filan. How much meeqa does he asaga take uu qaataa? How much meeqa does he asaga take uu qaataa? How much maxaa how much meeqa imisa how matalan laba eray waxay ahaayeen how waa sidee muchna waa badan laakiin markay israacaan how much imisa how much meeqa how much meeqa does he asaga take uu qaataa? He asaga takes wuxuu qaataa $200 $200 two waa $100 ee dollar. He takes $200 $200 u qaata. What about you? adiguna niyahow that means adiguna maxaad qabataa asaga duu shaqahaya. What about you? adiguna I am aniga waxaan ahay jobless baagamuudaan ahay. I am anigu waxaan ahay jobless baagamuuda maanaa shaqalaan baan ahay. I'm jobless. I am jobless baagamuud ayaan ahay. It says where xagee do you adiga like aad jeceshahay to work inaad ka shaqeyso haddaad shaqo heli lahayd where xagee where xagee intee do you adiga like aad jeceshahay to
to work inaad ka shaqayso. Where do you like to work? Where do you like to work? xagee jecesha inaad ka shaqayso? Work maanaa shaqayn. I aniga like waan jeclahay to work inaan ka shaqeeya in a ministry wasaarad oo macnaha Ministry of Education miya, Ministry of Health miya, Ministry of Foreign Affairs miya, whatever it is. Marka ministry wasaarad way tahay doonta baatay. I like waan jeclahay to work inaan ka shaqeeyo in a ministry wasaarad. It says your ambition hamigaaga is not bad ma xumo. Your waxaaga way marka yuda aan raacdo waxaaga adiga waxaaga marka aan raaco waxaaga. Your ambition hamigaaga is not ma bad mid xumniyo. Hamigaaga aad buu fiican yahay ma xumaniyo. Your ambition is not bad hamigaaga ma xumo. Yes ha my waa waxiga my das my waxiga way ana iskale. My ambition hamigayga is waxa weeyaan nice mid wanaagsan. Yes ha my ambition hamigayga is nice wuu wanaagsan yahay. Ambition maxaa waay hami macnaha waxaad ku haminaysa ayaa la yiraahdaa. Your ambition is not bad hamigaaga is not bad mid xun. Yes ha my ambition hamigayga is nice wuu wanaagsan yahay. Nice to meet you kulan wanaagsan. Nice to meet you too sidoo kaleeto. Nice waa wanaagsan to meet aan la kulma you adiga kulan wanaagsan way markaas. Nice to meet you too hataa hore waad barsan kartaa oo afkaas aragtaan oo aad kulantaan. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too wasdii kartaa. Ma kaliya inaad ugu soo gabagabeynaysa kaliya maane qofka marka kulantaan ayaad aragtaan. Nice to meet you too. That means before salam oo kale waad dhihi kartaan insha Allah ta'ala ama after salam oo kale insha Allah ta'ala. That is our lesson today. Thank you very much for listening insha Allah ta'ala. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.